السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري بدا صاحبيال halkani waa kulmiye private school magacaygu waa Umar Maxamed Ali. Saaxiibayaal ku soo dhawaada casharkeena cusub ee maanta qaadanayno wuxuu ciwaankiisu yahay dialogue between boy and girl. waa wada sheekaysi u dhaxayn doona markaas u dhaxmari doono wiil iyo gabar. hadaba wiilkan iyo gabadhan waxay ka wada hadli doonaan dagaalkii sokeeye iyo waxyaabihii bacnaa ee dalkeena u geystay. hadaba haddii adigu aad danaynaysay ama aad raadinaysay muuqaalka hadlayo ama cashar loogu wada hadlayo dagaalka sokeeye ee markaa dalkeena uu markaasi biyay waxaanu hadda markaasi aan kaaga la fadhinaa halkan inaad adiguna si amana noogu taageerto aad saarto kanalkan calaamada subscribe ta ku sabir. hadaba haddii hore ugu sabirtana fadlan hadda saar calaamada like ta si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena. hadaba dhamaadka casharkana waxaan sharxi doonaa erayada cusub ee halka ku jira ee waliba adag si aad u fahanto casharka insha Allah. dhamaadka casharka waxaad ku daawan doontaa muuqaal markaasi aan ku sharxi doono waxyaabaha erayada cusub ee casharkan uu ku yimid. hadaba warba yaanan idinku daalinne maanta ku soo dhawaada casharkeenan. waa tahay saaxiibayaal ciwaanka waa dialogue wada sheekaysi between u dhaxeeya boy wiil and girl iyo gabar. wiilkii ayaa hadalka bilaabaya. boy wuxuu leeyahay I am very much depressed. anigu aad baan u walwalsanahay because sababtoo ah our economy dhaqaalaheena is fluctuating. wuu isbedbedelayaa dhaqaalaheena wuu isbedbedelayaa aad baan ugu walwalsanahay. an inflation sicir bararkuna inflation waxa la yiraahdaa waa sicir barar. an inflation sicir bararkuna rose up sare ayuu u kacay. I am really anigu xaqiiqdii concerned about our economy. I am really anigu dhab ahaantii concerned aad ayaan ugu walwalsanahay about our economy dhaqaalaheena ayaan aad ugu walwalsanahay. aan ku celiyo wiilka wuxuu yiri I am very much depressed. anigu aad baan ugu walwalsanahay because sababtoo ah our economy dhaqaalaheenu is fluctuating uu isbedbedelayaa. an inflation sicir bararkuna rose up sare ayuu u kacay. I am really anigu xaqiiqdii concerned about waxaan aad ugu walwalsanahay our economy dhaqaalaheena. girl gabadhii ayaa hadalka qaabsatay waxay tiri all the problems dhammaan dhibaatooyinku emerged waxay soo ifbaxday dhibaatooyinko idil waxay soo ifbaxday after the revolutionary government kadib dagaalkii marka dawladii kacaanka had been tablet ee marka la riday dawladii kacaanka markii la riday kadib ayay dhibaatadeenu oo dhan ay soo ifbaxday bay leedahay gabadha. waxay tiri all the problems dhammaan dhibaatooyinka emerged waxay soo ifbaxday after the revolutionary government markii dawladii kacaanka had been tablet ee la riday. livestock xoolaha fishing iyo kalluumaysiga and farming iyo beer qodashadu waxay ahaayeen the cornerstone and tiirarka of our economy ee dhaqaalaheena. dhammaan lagu yiri marka xoolaha iyo kalluumaysiga iyo markaasi beer falashadu waxay ahaayeen the cornerstone and tiirarka of our economy ee dhaqaalaheena bay ahaayeen. waa tiirarkii dhaqaalaheena ayay ahaayeen bay leedahay gabadhii. our economy dhaqaalaheenu used wuxuu ahaa to gain extensive budget. to gain mid laga hela extensive budget dhaqaale xoogan ayaa laga helayay markaasi waxa la yiraahdo wadankeena our country wadankeena used wuxuu ahaa to gain mid laga hela extensive budget dhaqaale xoogan or mise income dakhli ayaa laga helayay. dakhli xoogan baa laga helayay from wild animals xayawaanada duurjoogta ah ayaana laga helayay dhaqaale aad u badan oo dalkeena uu soo galayay because sababtoo ah they were waxay ahaayeen xayawaanada duurjoogtuna good for kuwa ku wanaagsan tourism dalxiiska ayay ku wanaagsanaayeen xayawaanada duurjoogtana. however si kastaba ha noqotee they were hunted badly si xun ayaa iyaguna markaasi loo daba dhigtayo iyaguna marka waa la gaaday macna. hunted waxa weeye in dad ay baxaan xayawaanada duurka ku jira ay marka soo gaataan
marka Afsoomaali ahaana waxa weeyaan in qofka uu baxo hada sida dadka sagaalada gaado oo kale marka doorka ku jira Soomaan waxa weeyaan way erabtirayaan marka waxay leeyihiin they were waxay ahaayeen xayawaanaduna good for kuwa ku wanaagsan tourism dalxiiska however si kasta ha noqotee they were hunted badly si xun ayaa loo ugaarsaday iyagu waa ugaarsi marka waxay leedahay marka gabadhu waxay leedahay marka hadalkeeda man aan ku celiyo they were good for waxay ku wanaagsanayeen xayawaanaduna tourism dalxiiska however si kasta ha noqotee they were hunted badly si xun ayaa loo ugaarsaday and eradicated extensively si weyn ayaana loo marka dabargooyay si ba'an oo weyn ayaa loo dabargooyay bay leedahay boy wiilkii ayaa hadalka ugu dambeyn uu qabsaday wuxuu leeyahay isaguna I know waan ogahay that civil war in dagaalka sokeeye rendered us markaasi uu nagu soo kordhiyay I know waan ogahay that civil war in dagaalkii sokeeye rendered us uu nagu soo kordhiyay more tragedies musiibo badan uu nagu soo kordhiyay waan ogahay which will take kaas oo qaadan doonta many years sanado fara badan uu qaadan doono to be recovered in laga soo kabsado because sababtoo no one wants cidna ma doonayso to raise animals inuu xoolaha dhaqdo qofna ma doonayo inuu xoolaha dhaqdo and no one wants cidna ma doonayso to cultivate inuu qoto the farms beeraha qof beera fashan inuu beeraha fasho uu doonayna ma jirto there is no tax anshuurna lagama qaado on commodities badeecadahuna anshuur lagama qaado intellectuals dadka indhergaradkuna don't want iyagu ma doonayaan to teach inay baraan the people dadka tuitionlessly waxbarasho lacag la'aan inay dadka u keenaan oo dadku wax baraan ma rabaan merchants and baayac mushtariyaashu ama badeecadayaashuna dadka marka ganacsatada weeye don't invest iyaguna ma maalgashadaan their money lacagtooda kuma maalgeliyaan in the country wadankooda iyagu kuma maalgeliyaan lacagtooda these and many more kuwaani and many more iyo in badan what depressed me waa wixii anigu i qalbi jabiyay wiilkii aan ku celiyo hadalkiisa wuxuu yiri I know waan ogahay that civil war in dagaalkii sokeeye rendered us uu nagu soo kordhiyay more tragedies musiibo badan which will take kaasoo qaadan doonta many years sanado fara badan to be recovered in laga soo kabsado because sababtoo no one wants cidna ma doonayso to raise animals xayawaanada ama xoolaha inuu dhaqdo and no one wants cidna ma doonayso to cultivate inuu qoto the farms beeraha there is no tax anshuur lagama qaado on commodities badeecadaha intellectuals dadka indhergaradkuna don't want ma doonayaan to teach inay baraan the people dadka tuitionlessly waxbarasho lacag la'aan merchants ganacsadayaashuna don't invest ma qarsh gareeyaan oo ma maalgashadaan their money lacagtooda in the country dalka kuma maalgeliyaan these and many more kuwan iyo waxay ka badanba what depressed me waa wixii anigu i qalbi jabiyay waa tahay saaxiibayaal waxaynu haddana sii gudagalaynaa sharaxaadda erayada nagu cusub ee halkani ama casharkeena aan ku soo aragnay erayga koowaad waa depressed waa niyadjab erayga labaad waa economy waa dhaqaalo erayga saddexaad waa fluctuating waa isbedbedelka ku yimaada dhaqaalaha fluctuating waa isbedbedel erayga afraad waa inflation waxaa la yidhahdaa waa sicir bararka erayga shanaad waa concerned walwalsan ama ka walacsan ka walwalsan mise ka walacsan erayga lixaad waa emerged waa soo ifbixid in waxaas uu soo ifbaxaan waxaan soo aragnay waxyaabahan waxay soo ifbaxeen kadib dagaalkii sokeeye ee dhahay Soomaan marka emerged waxa weeyaan waa soo ifbixid erayga toddobaad waa revolutionary waa kacaan erayga siddeedaad waa government waa dawlad erayga sagaalaad waa toppled
وريد أما دعت دولة مركي دعضو دولة مركز سوي دعضو سومان مركز تابلت وهو ريد أرجع تمنات livestock وحولها أرجع كوي تمنات fishing كلوميسي إن ملاي دبشو ملاي قادتان كلوميسيغا ayaa la yiraahdaa ereyga 12aad waa farming beer falasho beer qodasho ereyga 13aad cornerstone waa tiir waxaan dhahnay falashada beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga waxay ahaayeen tiirarka dhaqaalaheena marka cornerstone waa tiir ereyga 14aad extensive weyn mise ballaaran ereyga 15aad waa budget waa miisaaniyad extensive budget miisaaniyad ballaaran mise miisaaniyad weyn sida bayad ereyga 16aad waa income waa dakhliga ku soo gala la yiraahdaa ereyga 17aad wild waa duurjoogta xayawaanada duurjoogta la yiraahdaa wild duurjoog ereyga 18aad waa tourism waa dalxiis ereyga 19aad waa hunted ugaarsi ama waa ugaarsaday ama ugaarsasho hunted waa ugaarsaday ama ugaarsadad ama ugaarsasho ereyga 20aad waa badly si xun ereyga 21aad waxaan ku fasirnay eradicated la ciribtiray ama ciribtiritaan waxaas in meesha dhan laga dabargooyo ayaa la yiraahdaa ereyga 22aad waxa weeye extensively si weyn ama si baaxad leh ereyga 23aad rendered ku soo kordhin waa aragnay wuxuu nagu soo kordhiyay marka rendered as ay ahayd waxa uu nagu soo kordhiyay marka rendered ku soo kordhin ereyga 24aad waxa weeye waa tragedies masiibooyinka ereyga 25aad recovered dib u soo kabasho ereyga 16aad cultivate waa beer qodasho mise beer falasho ereyga 27aad tax waa canshuurta ereyga 28aad commodities waa badeecooyinka ereyga 29aad intellectuals qof waxgarada oo caaqil ah indhergarad ah ereyga 30aad ugu dambeeya tuitionlessly waxbarasho la'aan ama waxbarasho la'aan halkaasaan idinku soo afmeeraynaa casharkeena maanta saaxiibayaal waxaan idinku tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo